السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دمانتين وين السلامة وأني وعشيف مهد دمانتين واد مهدسنتين سيدا وناكسناد مارتي ولا سعتين برنامج شيء عنا كرنتا halka maanta waxaan ku diyaariyay fish tikka masala iyo steam rice hadda aan galinaa sharaxaadii bariis iyo halkan waxaan dabka saaray oo kaliya qorfo iyo bariis ayaan saaray dabka kale wax kale kuma jiro bariis caadi iyo wax yar oo milix ah halkaas basal baa ku jirto halkaas waxa ku jiro qorfo ku jiro halkaas yaan shishiideen caadigeed kalluunkii lagsiga ahay ayaa ku jira halkaas marka inta waxa ku jirto qorfisaad xidni sheegay marka toon iyo maxay tahay waa taas dib ay u soconaa insha Allah intuu saadana halkan waxa ku jiro waa basal qorfo kalluunkii si fiican baan kala tusay insha Allah xawaajiyashi oo ah maxay tolay xawaaji dhudhub iyo maxay tolay xawaaji kari iyo garam masala intaas isku keenay halkan waa bariis caadi ah iyo biyo aan isku kariyay insha Allah xawaajiyash hadan si fiican aan ugu kala bixinaa insha Allah waxa waaye waa garam masala xawaaji dhudhub iyo curry powder alla gradeygaas aad arkaysaan iyo maxaa la qorfihi caadiga ahay iyo yaanyadaas aad arkaysaan iyo shishiid haduu ilaahay ka dhigo intaas ka sameynaya fish tikka masala steam rice kana waxa waaye bariis caadi oo aan kariyay carafta bariiska caadiga laga rabaa macnaha yani xawaajiyaal wax badan ma laha bis qorfi yar aan ku daray iyo in yar oo milix ah iyo biyo caadi ah intaas aan isku kariyay marka waa bariiski maartay carafta bariiska caadiga laga rabaa halkaas saliid kulul ayaa saaran saad arkaysaan basal baan ku shubaya hadda saad u jeedaan marka basasha ayaan wax yar shiilaya haduu ilaahay ka dhigo marka hadda waxaan ku daray xawaajiyashi iyo toontii iyo dadka intuu say hadda ku wada daray oo ayagana kula shiilaya insha Allah isku qasaya si fiican isku shiilaya إنه عادي ما عرفت ما شاء الله هذا waxaan ku shaqeeyaa yaanyadii tomaatadii caadiga aan ku shaqeeyaa insha Allah fish tikka masala waayo waxaan sameynayo kalluunka hadda lagu daray kalluunka gadaal dambe lagu darayaa because kalluunka hadaan ku walaajiyo way iga burburaya because suugada markay soo bislaato ayaa kalluunka kaga daraya oo ku daboolay oo kaliya kalluunku kuskusana waa adkaanaya markaas hadda maxaan ku daray ala gareetay baasha ku daro cusbo uma baahna marka taa hadda ku daro wax milix ah uma baahna qaandada caadiga la qayaas ahaan ku daray marka intaas aan isku qasaya maaratay biyo yaraan ku daraya duulay ka dhigo ka bacdi marka maxay ahayd tole waxa yaraan dab ku deyn doona insha Allah waxaan ku darayaa hadda heelkii caadiga ku daraya insha Allah saad arkaysan si fiican aan isku qasaya haddana marka haduu ilaahay ka dhigo haddana maxay ahayd tole waxaan ku darayaa shishiidii caadigeed oo hal qaanda caadi aan ku darayaa shishiidii aan tusay taaytay waxaan ku darayaa biyo caadi aan ku daray hadda saad arkaysaan lags ayaan ku daray haddana insha Allah waxaan kala dhaqaajinaya waan daboolaya marka hadda ma sha Allah kalluunka saan soo bislaanaya marka hadda daboolka lan ku xiji doono haduu ilaahay ka dhigo hadda waxaan tusay waxaan kala dhaqaajinaya soo kalluunku waa adag yahay macnaha inuu wiliis haysto waa hadda marka hore walaaji lahay oo burbur lahay marka kalluunka uu muuqda ee loo baahan in la arko marka kullu dib ma dhaqaajinaysa u sii deynaysa marka karo uu adkaanaya asigaas qabsanay kalluunkii marka hadda waa gurina timekii aan gurina waa hadda bariiski steam rice ka ayaan gurina bariiska ma sha Allah yani caraftiisi kalluunkaas uu isku soo baxaya bariiska xawaajiyaal adduunyo ku dalacid waxa waaye dhadhankii macnaha oo maaragtay aartay ayaa ka baxay maxaa lahaye fish tikka masala dhadhankiisa ayaa ka baxaya iyo caraftiisi marka hadda ma sha Allah waa aniga gureyno fish tikka masalihi marka isku soo baxayaan bariiskan aad arkaysaan oo steam rice ka iyo waxa isku soo baxaya maxaa la dhahaye fish tikka masalahaas isku soo baxayaan ma sha Allah especially isku yihiin
cunaba cuno ayay kusoo baxdaa maaragtay maasha allah. Marka maxaa lalahay hadda steam rice kaas iyo maxaa lalahay maxaa kanas kusoo baxayo. For example Mombasa chicken la dhahayaan sameyn doonaa insha allah, iyo maxaa la dhahay coconut maxaa pineapple rice insha allah. Bariis aan ku kariyaa ananas pineapple rice insha allah. alaabta maasha allah saan ay kusoo baxaysa arkaysaan. cashirkaas maxaa isleeyahay insha allah brittle ayaan bixi doonaa insha allah. Pineapple rice iyo Mombasa chicken biri ayaan bixi doonaa hadduu ilaahay ka dhigo. asxaabta waa mahadsantihiin, subscribe iyo like iyo share insha allah. waa mahadsantihiin dhammaantiinba.